ma tahay qof mashquula waan fursad u helin booqashada isbitaalka maalintii ma jeceshahay inaad hesho adeeg caafimaad habeenkii ama wakhti kasta oo ku habboon jadwalkaaga ma leedahay xaalad caafimaad oo u baahan in si joogta loo kormeero ma ka warwarsan tahay safarka ama sugitaanka dheer ee isbitaalada maalintii ha warwarin isbitaalka kalkaal wuxuu hadda soo kordhiyay adeegga bukaan socodka habeenkii si loo hubiyo in qof walba uu helo daryeel caafimaad oo dhammaystiran xitaa saacadaha ugu dambeeya habeenkii adeegyadan cusub waxaad ka faa'iidaysan kartaa qaybaha kala duwan ee isbitaalka iyadoo la hubinayo in bukaan kasta qof yar iyo qof weynba uu helo daryeel ku habboon shaqaalaha habeenkii jooga ayaa diyaar u ah in ay ka jawaabaan xaaladaha degdegga bixiyaan dawooyinka isla markaana ay la socdaan xaaladaha bukaanada waxaana ka mid ah qaybta haweenka iyo qallimadooda oo bixisa daryeel gaar ah oo loogu talagalay haweenka gaar ahaan kuwa u baahan qallimo ama la socod gaara xilliyada habeenkii qaybta daryeelka afka ilkaha oo aad ka helayso adeegyo caafimaad oo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin baaritaanno daaweyn iyo la talin ku saabsan qaybta daryeelka maqaarka timaha iyo ciddiyaha oo ay diyaar kuugu yihiin dhakhaatiir takhasus sare leh oo kaa caawinaya xal u helidda dhibaatooyinkaaga maqaarka timaha iyo ciddiyaha iyagoo hubinaya caafimaadkaada guud ee jirka waa kuwan qaar ka mid a bukaanada sida weyn uga faa'iidaystay adeegyada bukaan socodka habeenkii ee isbitaalka kalkaal magacayga waa Kawsar Cabdullaah waxaan ka mid ahaa bukaanada isku xiran isbitaalka kalkaal maalintii waa soo haleeli waa qayb ilkaha magacayga waa Jeeriya waxaa ka mid ahay istamarka kalkaal hospital qaybta Banaadir waxaa awood waa inaan maalin imaado isla jireeda habeen imaaday haddii aad tahay qof mashquul ah ama aad u baahan tahay adeeg caafimaad xilliyada habeenkii isbitaalka kalkaal waa halka iyo goobta aad ku kalsoonaan karto isla markaana kuu diyaarisay daryeel caafimaad oo dhammaystiran oo lagu fidinayo saacadaha habeenkii oo dhan